kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa Soomaali Barees TV qodobada ugu waaweyn ee warkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doono gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe oo si cara leh u beeniyay inuu madaxda dalka Austria uu kala hadlay arrimo ku saabsan u doodista dadka isku jinsiga isku galmooda barnaamij wareedkeena ayaan ku faahfaahin doonaa al-shabaab dhankooda ganacsatada Soomaaliyeed ayay ugu baaqeen inay iska diidaan kana hortagaan dawladdu hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ganacsatada Soomaaliyeed oo ay haysato laba daran mid dooro barnaamij wareedkeena ayaan ku faahfaahin doonaa gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeete Cusmaanna wuxuu lacaga waali ah uu dul dhigay madaxa afayeenka kooxda al-shabaab iyo xubnaha kale ee kooxdaasi lacagaha uu u ballan qaaday askartii soo disha afayeenka kooxda al-shabaab beesha mursadana Muqdisho waxay ka qaaday hubkii ugu badnaa oo ay beeshu ay leedahay si ay deegaanadeeda muddada dheer ay haystaan al-shabaab uga xureyso qodobada iyo sidoo kale qodobo kale oo xiiso badan ayaan barnaamij wareedkeena Soomaali Barees TV saaxiibayaal maanta aan ku jeexjeexi doonaa waxa balse marka hore idinka codsanaya haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay page-keena in aad rukumato si wararkeena iyo warbixinada xiisaha leh ee aan halkan soo gelino ay maalin waliba idiin soo gaaraan maanta aan barnaamijkeena ku bilaabo gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa si cara leh wuxuu kaga hadlay hadal ay dhawaan ku dureen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya qaarkood oo ay gudoomiyaha ay ku sheegeen in dalka Austria uu u tagay sidii uu madaxda dalkaasi uu kala hadli lahaa arrimo ku saabsan dadka isku jinsiga ee isku galmooda Aadan Madoobe ayaa si cara leh uga jawaabay eedeentaasi wuxuuna sheegay in been abuur ay ka sameeyeen xildhibaanada ay arintaasi tahay maadaama uu sheegay inuu yahay wadaad wax badan ka yaqaan diinta islaamkana ay ka mamnuucday in arrimahaasi oo kale uu ololeeyo gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in wax lala yaabo ay noqotay kadib markii uu dalka uu ka soo tagay in xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya in bulshada Soomaaliyeed ay ku maran habaabinayaan in gudoomiyaha madaxda dalka Austria uu kala hadlayo arrimo ku saabsan dadka isku jinsiga ee isku galmooda Aadan Madoobe ayaa waxa uu sheegay in tan iyo markii warkaasi uu maqlay ee la noqotay la yaab isla markaana fajac iyo amakaag uu ka qaaday in Muqdisho shirar jaraa'id ay ku qabtaan xildhibaano ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka gaar ahaan xeerdejiyaasha isla markaana shacabka Soomaaliyeed u sheegaan in gudoonkoodii uu dalka Austria uu aaday sidii madaxda dalkaasi uu kala hadli lahaa barnaamijyo ay diinteena islaamka ay mamnuucday si gaar ah dadka isku jinsiga ah ay isku galmoodaan haddii ay ahaan lahaayeen laba qofood oo dumar ah oo galmo isla damca iyo sidoo kale laba raga Aadan Madoobe ayaana wuxuu sheegay in taa uu gaashaanka u duruurayo arrintan gudoomiyaha golaha shacabka uu aadka uga carooday waxa kal hore baraha bulshada ay ku xiriirto ku faafiyay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka xildhibaan Maxamed Sheekh Cabduqaadir Cismaan Generaal Ciirow oo ka mid ah wafdiga gudoomiyaha golaha shacabka oo afka gudoomiyaha golaha shacabka ku hadlay ayaa waxa uu beeniyay wararka maalmihii la soo dhaafay aadka loogu hadalhayay baraha bulshada isagoona sheegay in gudoomiyaha golaha shacabka dalkaasi Austria uu tagay arrimo ku aadan sidii loo horumarin lahaa arrimaha baarlamaanka labada dal ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo sidoo kale dalka Austria gudoomiyaha golaha shacabka arrimihii lagu eedeeyay in uu ka jawaabo taa waxay meesha ka saareysaa hadalhayn shacabka Soomaaliyeed ay ku abuurtay in xilligaani gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe oo ay aad u yaqaanaan in dalalka Yurub ku yaala uu ka bilaabo barnaamijyo ay xaraantinimeysay diinteena islaamka iyagoona shacabka Soomaaliyeed xilligaani aad u hadalhaya jawaabta sida degdeg ah uu bixiyay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe qodobada kale ee barnaamij wareedkeena ku jira haddii aan eegno dagaalamayaasha al-shabaab dhankooda war ayay soo saareen ganacsatada Soomaaliyeed waxa haysata laba daran mid dooro maadaama dawladina ay soo saartay warar ah in al-shabaab ayna xilligaani ganacsatada wax macaamil ah ay la sameey karin al-shabaab dhankoodna waxay ugu baaqeen ganacsatada inay iska difaacaan oo ay ka hortagaan dawladda uu hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud
kadib warkii ka soo baxay wasiirka ganacsiga al-shabaab dhankooda qoraal ay soo saareen waxay kula hadleen ganacsatada waxay uga digeen in tallaabo ay ka qaadi doonaan ganacsatadii ka leexata muuqafkii ay ku heshiiyeen kooxdaasi iyo ganacsatada waxayna ugu baaqeen in jawaab degdeg ah ay ka bixiyaan ganacsatada warka ka soo yeeray dowladda al-shabaab ayaa ku eedeeyey dowladda xasan sheekh maxamuud in ay doonayso inay banaysato hantida ganacsatada Soomaaliyeed iyadoo marmarsiyo ka dhiganayso in al-shabaab ay la macaamilaan sidaasi darteedna ay dowladda hantida ganacsatada Soomaaliyeed ay ku boobto ganacsatada Soomaaliyeed waxay xilligaani dhaxda u galeen dagaal dowladda federaalka Soomaaliya iyo al-shabaab oo haatan isku haya dhinaca dhaqaalaha maadaama al-shabaab xilligaani dagaalo ka dhan ah ay ka socdaan gobolada dalka dowladda ayaana u degirogotay in dhinaca dhaqaalaha ay kala dagaasho al-shabaab ganacsatada waxay wajahayaan xilligaani laba fariin midkood qaado ma shabaab amarkooda ayaa qaadataa oo dowladda ayaad warkeeda dhagaha ka fureysataa mise dowladda Soomaaliya ayaad warkeeda qaadataa oo al-shabaab hanjabaadaha iyo cagajugleynta ka soo baxaya ayay dhagaha ay ka fureystaan ganacsatada qaarkood ayaa waxay sheegeen in labada fariin markii ay eegeen ayna qaadan karin midda dowladda maadaama ay sheegeen in dowladda kaliya ay xilligaani tallaabada u horeysa ay qaadi karta ay tahay in ganacsatada ay shatiyada ay kala laabato amba ay xirto goobahooda ganacsiga waxayna tallaabada labaad ay sheegeen in dhanka al-shabaab ay tahay tallaabada ay qaadeen cagajugleen iyo sidoo kale handadaad la xiriirta in ay dilayaan oo xarumahooda ganacsiga weeraro ay ka fulin doonaan amba naftooda la dhaafsiin doono marxalad culus oo laba daran mid door ay ganacsatadu xilligaani ay wajahayaan lama oga sida dowladda Soomaaliya ay isku qabadsiin doonto ganacsatada Soomaaliyeed oo shaqeysta hantidooda oo dowladdu ay canshuurto iyo al-shabaab oo ay ka nabad galaan qodobada kale ee barnaamij wareedkeena ku jira saaxiibayaal haddii aan sii faahfaahino maamulka gobolka Hiiraan wuxuu ku dhawaaqay arin uguba oo xiise u sii yeelaysa dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda deegaanada maamulkaasi gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan oo la hadlayay ciidamada dowladda isla markaana kulan dhiirigelin ah u sameynaya ayaa waxa uu sheegay in xilligaani lacag fara badan uu dul dhigayo madaxa afayeenka kooxda al-shabaab askarigii amba ciidanka maleeshiyaadka macawisleyda askari ka mid ah haddii uu soo dilo afayeenka kooxda al-shabaab Cali Maxamuud Raaga Cali Dheere ayaa waxa uu sheegay in awaalmarin ahaan uu heli doono $25,000 Mareykanka halka sidoo kale qofkii soo dila sargaal sare oo ka tirsan al-shabaab uu dhankiisa uu heli doono $10,000 Mareykanka sidoo kale ciidamada ayuu ugu baaqay in arrintan ay ka faa'iideystaan haddii ay soo dilaan hal dagaalyahan oo ka tirsan al-shabaabna ay heli doonaan cadad lacageed oo gaaraysa $5,000 taa ayaana dhiirigelisay ciidamada dowladda arrintan waxay noqon doontaa qorshe cusub uu maamulka gobolka Hiiraan uu kaga gol leeyahay sidii deegaanada gobolkaasi looga saari lahaa dagaalamayaasha al-shabaab iyadoona lacagtani loo ballan qaaday ciidamada ay u noqon karto dhiirigelin in askari walba oo ka tirsan ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaanka uu ku dhiirado in meelaha ay joogaan al-shabaab ay u weeraraan sidii ay u heli lahaayeen lacagtan tirada badan oo waalida ah uu maamulka gobolka Hiiraan u calaamadeeyay inay qaadan doonaan askarigii soo dila afayeenka kooxda al-shabaab amba sargaal kale oo ka tirsan kooxdaasi amba dagaalyahanada ka barbar dagaalamaya kooxdaasi qodobka ugu dambeeya maanta barnaamijkeena haddii aan eegno beesha xawaadle ayaa baraarugtay iyadoona gaadiid dagaal iyo ciidamo aad u fara badan oo ay beeshu ay leedahay ay ka dhoofeen garoonka diyaaradaha aadan cadde ee Muqdisho beesha ayaana ciidamadan tirada badan waxay u qaaday deegaanada gobolka Galgaduud gaar ahaan deegaanada beesha muddada 10 sano ay dhulkooda ay maamulayaan al-shabaab xubnaha ka baxay garoonka aadan cadde waxaa hogaaminaya gudoomiyihii hore ee degmada Dayniile Mr. Jacfar isla markaana hadda ah xildhibaan ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka beesha ayaana qaaday hubkeedii ugu badnaa ee Muqdisho ka iilay waxaana sheegtay in maalmaha soo aadan xarar dheere iyo sidoo kale dhulka ay beeshu ay ka degto gobolka Galgaduud ay ka saaran doonaan dagaalamayaasha al-shabaab maadaama beelaha kale ee xawaadle iyo sidoo kale abgaal dhulkooda ay xilligaani ay wadaan inay ka saaraan al-shabaab beesha ayaa ku doodaysa in dhulal muhiima oo ay leedahay muddo 10 sano ka badan ay al-shabaab xilligaani ay ka dhigteen
xarumo maxkamado iyo sidoo kale xarumo ay uga soo duulaan beelaha kale ee diriska la tahay taana ay suuragal ahayn in dhulka beesha mursada ay leedahay ay noqdaan kawaan dadka looga yeera iyo sidoo kale xarumo lagu qorsheeyo weerarada laga geysanayo deegaanada kale ay degan yihiin beelaha kale ay diris wadaagtu ay yihiin guud ahaanna saaxiibayaal waxaan halkaani ku soo gabagabeynaynaa barnaamij wareedkeenna aad kala socoteen Soomaali Barees TV waxaan mar kale kaa codsanaynaa haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqatay channelkeena in aad rukumato si ay kuu soo gaaraan wararka iyo warbixinnada aan halkan soo gelinno mahadsanediin dhammaantiin